saddex casho oo dood ah kadib ay soo gabagabowday doodii maaragtay looga keenay codka kalsooni kala noqoshada gudoomiye mudane cali gacal casir dadkii hadda xildhibaanada halkan ka doodayna dhammaantood intaan ka ahayn hal xildhibaan ay soo jeediyeen in maaragtay maanta gacan loo taago si uu maaragtay codka kalsoonida hadduu helano saa ku guulaysto hadduu waayana uu noqdo xubin ka mid ah xubinada xildhibaanada baarlamaanka galmudug maadaama waqtiga uu yar yahay aadna qoraxda u kulushahay waqti badan lagu jiro salaada duhurkii la gaaray waxaan rabnaa in maaragtay si democracy ah aad ugu codaysaan iyadoo qof walbaba uu gacanta taagayo si loo arko inay tahay mataqaanaa gacan haafaysan noqon qofkii diidan waa diidi karaa qofkii ka aamusan waa aamusi karaa qofkii kalena aysan noqon in dadka qaarkoodna ay laba gacmo taagaan waxaa loo baahan yahay cod sax ah inuu halkaa ka dhaco oo xalaal ah aad baan u mahadsantihiin waxaana hadda idin leeyahay fadlan eedeymihii aad soo jeediseen guddoomiyaha lagu soo eedeeyey oo ay ka koobnaayeen dhowr qodob oo dastuuri ah aad ku soo eedeyseen inuu ku xadgudbay intaas qabto in guddoomiyaha mudane cali gacal casir lagala laabto codka kalsoonida gacanta kor ha u taagan afartii toddobadii waxaa u codaysay in codka kalsoonida lagala noqdo 146 hal codoo ka midna waa diiday saas ayayna maaragtay ku tahay ansax uu ku waayay guddoomiyihii baarlamaanka aad iyo aad ayaa mahadsantihiin waxaan rabaa inaan halkaan idinkaga sheego insha allahu tacaala ka guddoon ahaan ayaa idila soo socodsiin doonaa maalmaha soo socda guddiga doorashada oo la qaban lahaa iyo qaabkay u dhici lahayd annagaa idila soo socodsiino insha allahu tacaala waxaan kaloo idinka codsanayaa in maanta halkaas qarfadigeenu ku xiran yahay aad iyo aad baan u mahadsantihiin wasalaamu calaykum shirkan waa noo xiran yahay